إله بين اثنين مراد إن إله كان مراد كم إله هنا كهير صاحبه إله هنا كهير هذي ملكه ضخ وحرك يسوع صدي ما دحنا إله ونور راجع واحد قبل ضد قوانا نعيا بقرب يجي عينه جاي اللي جرى ما دحنا إله ونور راجع غير كذا يسوع هو بيجرى ما قرب يعبر إله وبين كاغنا ناس إله مصلحة خير وتنوع إله مسلم كرم تكسر إله غير طالب بس إله نكين يلقى القوة ربي كسوق هذا ما هو قاس هذا أنا هو الرئيس أنا هو إله خلاص دان وحكوا كاملين وهذا عمل فيه ما يقبل أنا هو دان خلاص وحكوا كاملين هذا عمل جيء ونصيان هذا إله هو كاب نصيان تنبكوا إله ساقي ربنا وبيرضي الله ينكوه خلاص عارف شفتي هذا الله ينور اللهم صل على محمد اللي يفعل هو يمثل عين ما صعد لي مغمور ويسوي بسم الله الرحمن الرحيم وحياتها الوقتين كان سؤالي وحي دوري لا تنعشوا فلي تيجوا باب دوري وتعطش خلص برواتها يعني نسافر سنة سنة وحنا يرتب بلش هذا الثمن زي إننا نسوي حتى النساء أنا وساك مدة في وجهة حنا كم مرة لو يسمع كم مرة بالوصول خمسة وكلام ربع ما يكون إن شاء الله وإن هذا شيء شيء هذا عود عشان الإسلام شيء حوار حنون شيء إن شاء الله توقفوا حتى لو ما صار ربع إسماعيل إنه مسلمان مركا أنا هو هذا وإذا مغلق الرأى أنت كلا مغلق وياه وجين كرا وهذا أساس الجواب كسؤالين دي أجنبي بيسألني هذا أنا ما نقول فتاني بحيرة بكير جدا مركا سيدي هذا وثاني أنا بنجيب طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلى قد صارت وحن نظرت من كل الجواب في شرع المقبلين صدح من أنيق الوضع وكلا أيانا نروح ساعة تفرد يلو من ليسان وعن كسوة تشني من يسمى ماذا يمكن ينجوه وريا باتو أنه قرآن كيوني سيدي غريبة عن أبلان قادلي وأنه أطلحان سوء فنيان بإجماع سوء فنيان أطيعنا وحطها مدى كالي عبد الرزاق حاج حسين حفظه الله أنه إراية رانتي سيبانا عبد الرزاق حاج حسين wuxuu ahaa ninkii asagoo taar wala ah nimankii ingiriisku dalkeenu u talinayey asagoo taar dhinaca iswaayan leedahay jirhaya oo cabdullaahi ciise oo new york jiro soomaali nin adduunka warkeeda gaarsiiya ugu horreeyey isagoo taar u dirhaya yaa taarkii lagu qabtay markaa taarkii warqadii laqo marka cabdirasaaq kifaaxii gobonadoonkii dowrku ka qaatay waa nin macruufa
SYL ahaan markii dambe oo wuxuu ka mid ahaa raggii Soomaaliya dowladnimada gaarsiiyey dowladdii Soomaaliyana wuxuu ka noqday wasiiru daakhili iyo prime minister intaba waa nin Soomaaliya oo dhan iyo adduunweynuhuba ay yaqaaniin shirkii Jabuuti lagu qabtay shir Soomaali ku dhan tahay oo markii xarbul ahliga dowladdii dalka u tanjiray markii la riday shirkii ugu horreeya Soomaaliya Jabuuti isugu timaado wuxuu ahaa 3 oday oo Soomaaliya oo shirka hogaaminaysay laba nin oo asagu ka mid yahay asagii Maxamed Ibraahim oo prime minister ahaan jiray iyo oday Ali Cabdulle oo awal ra'iisul jumhuuriyadda Soomaaliya ahaa SYL presidentkeeda ah oo shirka hoos loo doortay inay shirka Soomaali u dhintay inay hogaamiyaan haddii maanta waxa weeye qaran waliba wuxuu leeyahay degmo iyo gobol iyo reer waliba odaygiisu leeyahay walaakiin maanta haddii qarannimada Soomaaliyeed yaa oday u ah haddii la yidhaahdo odaygaas Ali Cabdulle baa ka horeeya oo hadda waayeela oo hawl gabay waa ninka labaad Maxamed Ibraahim Magaal baa weheliyey حقا وأستغنى المتحدث إنه قبلوبي وقرن مدي لو جدي قبل مدي إنه حاجاتي وله شيء مركا مما أنت قلت كلامه وأن يتلو دي بنه أنا قلت ينتهى مثلا ولا ابنه لو كو حضر اسمها انت ترميش كان سوت من مرعود وحنوي هي منك ugu khayrtoon سوى بعدين لو حق قومي حق رجلمو حق يعني مدحنمو قائد انتبه nin hadda aanu oran lahayn isagaa kaasa ku doorsanno noo muuqdo lamaga jiro marka annagu waxaanu go-aankiinaas khayr buu noo yahay waa asibteen waa ku mahadsan tihiin adduunka looga dhaqmo waxaa yahay laba fikradood midi waxaa weeye aan xusuusba u baahnayno inaanu maanta yani inaanu maanta maamul dawlad u baahno baahi ayna sheegta inaanu yani fawda qarka u saaranahay inaan madalka aan waxba asluubaysan waxaanu qarka u saaranahay waqti tolkeen intii ugu xumay ugu nasab yaray ay leeyihin waxaa danta samayn karna waa magaceena iyo sharafteena iyo masaalixdeena ay yani halis qarka u saaran tahay marka maamul dawliya baan u baahana ko midda labaad waxaan u baahan cabdirisaaq haddii magacii aad shalay go-aankiinii haddee saasaan u qaadan anagu cabdirisaaq haddii aad xilkii saadheen in dhaqso deg deg loogu yeero haddii xilkii aad saadheen isaga adag shirtan xilkii ugu cuslaaba saadheen maanta cabdirisaaq xilkiisuna saadheen aad buu culus yahay wixii wax ku qaban lahaana waa laba hayo oo de waxay nahay warkii waa iga dhan yahay haddii wax ku baran darahayo السلام الله عليكم إذا كنا جينا كوي ومدة إلهي أيام ومدة حين راهين هل كامل كي يسوي سلامها إلى عروض
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا أحمد. شيء شرف بشوف وصوق شيء دومي SSDF إن عبد الرزاق حاج حسين نقوم مقعابي. war wanaagsan baa ka dhacay خير وي خير 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 وي خير خير بدر احنا وش قلت لك وينك اسمه kii muddo loo fadhiyey magaalada Qardho Congress-ka ururka SSDF ayaa maanta waxaa lagu dhawaaqay guddoonka ugu horeeyay oo ay guddoomiyeen isimada gobolada waqooyi bari kaas oo ay ku magacaabeen hogaamiyaha gobolada waqooyi bari siyaasiga weyn Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. waxaa dadkan oo dhan maanta fantisiyo iyo mudaharaadyo u samaynayaan guushaas weyn oo ay gaareen gobolada waqooyi bari oo maanta lagu doortay hogaamiyaha hogaamin doona gobolada waqooyi bari. bal waxaad nooga warantaa sida ay kula muuqato guddoonkii ay soo saareen isimada gobolada waqooyi bari oo ahaa hogaaminta gobolada waqooyi bari arrintaasay u aragtaa? run ahaantii waxaan odhan karaa muddadii aan anigu jiray marka la xisaabo maalmihii aan farxay inay tahay maalintii ugu weynayd maantanu mana filayn isimadu ilaa iyo heerkaasba in aynu magaranaysaa gaari karo in cabdirasaaq xaaji xuseen loo doorto guddoomiyaha SSDF oo aan odhan karaa cabdirasaaq xaaji xuseen inuu yahay figar siyaasadeed oo dadka farakutiriska ee afrikiiba ay haysato uu yahay lamana odhan karo cabdirasaaq xaaji xuseen waa nin SSDF oo keliya aynu u doorannay inuu madaxu noqdo waa nin aynu u doorannay ummadda Soomaaliyeed dhibaatada haysata inuu ka falgalo sidii uu wax uga qaban lahaa isagoo rabbigiisa iyo intii nabadda jecelba la kaashanaya. cabdirasaaq xaaji xuseen ma aha dagaal ooge iyo nin jabhad sida magaranaysaa dad kaleeto uu magaranaysaa jabhad lagu odhan karo waa warlord la odhan karo waxa weeye nabadoon Soomaaliyeed ummadda tan gobolada waqooyi barina sidaan filayo ilaahay la garab galay ku hogaamin doona nabadgelyo iyo sidii Soomaaliya inteeda kaleeto la isugu soo xir lahaa. ma ku kalsoon tahay dhammaan musharaxiintiinu qoladiina musharaxiinta ah inaad la wada shaqaynaysaan? run ahaantii anigu taydaan horta ka hadli karaa oo keliya laakiin muhiimaddu waxa weeye iyadoo isimadu ay yihiin hay-addii ugu sarraysay ummadda gobolladatan ku dhaqan go'aanka ay soo saareen aanu jirin go'aan kaleeto oo la barbar dhigi karo ama cid kaleeto oo lala tartansii karaa waxaan qabaa ninkii diidaa dee isagaa gaariga ka dhacay. xaqiiqadu waxay tahay ummadda wixii dan u ah in la raaco inagu ma naqaan wixii khayr noo ah iyo wixii shar noo ah ilaahayn baa garanaya laakiin maanta waxaynu u jeednaa in bari ay 14 Agost ugu doorteen guddoomiyaha ururka SSDF Cabdirasaaq Xaaji Xuseen 14 ilaa 18 ayaa mudaharaadyo goosgoos ah oo isdaba joogay ka socdeen gobolada waqooyi bari
waddanka ka jiray sida xasiloonida ah iyo walaaltinimada ah oo ay u wada noolaadeen iyagoo aan marka waxaan jeclahay inaan kulligeen idinku baraarujiyo in maanta loo baahan yahay inaynu muujinno midnimo xoog leh si aynu uga baxno dhibaatooyinka ina hortaagan mar haddii aynu doorannay oo magacaabannay madaxdii ina hoggaamin lahayd innagana waxaa loo baahan yahay inaynu midnimo muujinno waxaa loo baahan yahay inaynu gobolkeenna dhisno inaynu dhisanno dawlad goboleed arrimaheenna maamusha dhaqaalaheenna kor u qaada danaheenna oo dhan ka fakerta markaynu xoogsanno oo dhaqaalaheenna dhisno waxaa shakilo ah inaynu qayb weyn ka qaadan doonno dib u dhiska qarankii soomaaliyeed iyo midnimada ummadda soomaaliyeed anigoon hadalka badinahayn waxaan ku soo goynayaa soomaali ha noolaato SSDF ha noolaato gobollada waqooyi bari ha noolaadeen degmada qardana ha noolaato waxaanu taageersannahay dhammaan wixii hadda ka dambeeya waxa ay soo saaro go'aanada waa taageersannahay waxaanu taageersannahay go'aanada ka soo baxay isimada oo kuseeya gaar ahaan gobollada waqooyi bari guud ahaanna soomaaliya waxaanu taageero kale u soo jeedinaynaa aqoon-yahanada waanu taageeraynaa waxaan kale u taageeraynaa dhammaan inta jecel nabadda ayaanu taageeraynaa mudane cabdirasaaq xaaji xuseen ha noolaado ha noqdo kii loo hogaamiyo nabad iyo barwaaqo isimada gobollada waqooyi bari ha noolaadeen reer qarbood ha noolaado sidaa iyo nabadgelyo oo qarannimada Soomaaliya rabta inay dhisto